السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقاعيقو وحسن عثمان كسولو channelka idaacada Buulxubay. Waxa maalintii Sabtida ahayd ay soo dhaaftay ee bisha ay ku beegneed labada bisha July ee sanadka 2022 dalka Norway shil gaari ka badbaaday ninka lagu magacaabo Larry Sterson oo ku caan baxay muslim nacaybka iyo soo galootiga sidaasi oo kale ku caan baxay in uu gubo kitaabada Quraanka Kariimka ah kuna horgubo meelaha ay muslimiinta ku badan yihiin gaar ahaan masaajidada hortooda. Larry Sterson ayaa maalintii Sabtida ahayd daqiiqado ka hor wuxuu gubay nuqul kamid ah kitaabka Quraanka Kariimka kadibna wuxuu isku dhigay wadada highway-ga waxaana ka daba timid gabar cadaan ah oo ilaa hadda dhalashadeeda aan la sheegin. gabadhaasi ayaa waxay sameysay in gaarigiisa ay gaarigeeda ku dhufatay kadibna Larry Sterson gaarigiisa uu laba jeer uu qalibmay. Larry wax dhibaato ma gaarin isaga iyo dadka gaariga la saarnaa. booliska waxay sidaasi oo kale ay soo xireen gabadhii gaariga ku dhufatay iyo qof kale oo gaariga la saarneed oo iyadana haweenay ahayd. haddaba Larry Sterson wuxuu ku caan baxay mar walba inuu kitaabada Quraanka Kariimka uu ku horgubo meelaha public ay dadka isugu yimaadaan. wuxuu sidaasi oo kale ninkan ku caan baxay in uu mar walba kitaabka Quraanka Kariimka si fool xun u gubo oo sidaasi oo kale kitaabka Quraanka Kariimka oo hilibka doofaarka ah oo dul saaro ama uu ku sharxo. ninkan dawladda Norway waxay ku sheegtay inuu xaq u leeyahay in uu freedom of speech ku hadlo ama wixii markaasi uu xur u yahay dhaqanka uu ku dhaqmayo. ninkan iyo kooxdiisa ayaa waxay ku caan yihiin muslim nacaybka iyo dadka soo galootiga ee dalkaasi Norway ku nool. haddaba dhacdada ninkan ee maalintii Sabtida ahayd uu ka badbaaday waxa aad u soo dhaweeyay muslimiinta dunida ku kala nool ee bari iyo bugux waqooyi koonfurba ku kala nool. sidaasi oo kale ninkan wuxuu marar kala duwan aflagaado u geystay suubana Nabi Muhammad naxariis nabadgelyo dushiisa haatee isagoo Nabi Muhammad ku sheegay inuu yahay argagixiso. ninkan iyo kooxda uu ka tirsan yahay ee lagu magacaabo CN oo ah koox u ololeysa in Norway laga mamnuuco dadka muslimiinta. ninkan iyo kooxdiisa ayaa waxaa marar kala duwan la arkayay iyagoo baarlamaanka dalkaasi Norway hortiisa ku gubaya ama ku jeexaya kitaabka Quraanka Kariimka. marar aan la qiyaasi karin ay dawladda Norway waxay saxaafadeeda iyo shakhsiyaad kala duwan si bareer ah uga ogolaatay inay aflagaadeeyaan Nabi Muhammad naxariis iyo nabadgelyo dushiisa haatee. dhacdadan ninkan uu gaariga uu kaga badbaaday ayaa waxay timid isbuuc kadib markii nin dalka Iran u dhashay laakiin dhalashada dalkaasi Norway haysta uu ku laayay dalkaasi Norway dad badan oo ah dadka isku jinsiga ah meel xaflad ay ku qabsanayeen. ninkan ayaa waxa uu muuqdaa markaan inuu ka carooday falkii ninkaasi uu ku kacay ee uu ku laayay dadka isku jinsiga ahaa meel ay xaflad ku qabsanayeen.